maalin maalmaha ka mid ah ayaa sayid cali bin abidaalib radiallaahu canhu iyo wiilkiisii sayid xasan isku raaceen suuqa si ay wax uga soo iibsadaan. waxa uu maqlay sayid cali bin abidaalib nin ku qaylinaya yaa lacag ideeminaya. intii yareed ee ay wateen sayid cali ninkii ayaa uu siiyey. sayid xasan ayaa ku yidhi aabbo lacagtii waad wada siisay ee annaga maxaad noo reebtay. sayid cali ayaa ugu jawaabay allihiina siiyey intaan yar wuu awoodaa inuuna siiyo in ka badan. suuqii ayaa ay galeen markaas si lama filaan ah waxay la kulmeen nin reer miyi ah oo leh sayid caliyow hashaan iga iibso oo 100 dirham iga siiso. sayid cali waxa uu ku yidhi wax lacaga ma sito. waxa uu ku yidhi waan kaa sugayaa ee qaado hashi. sidii ayaa uu sayid cali ku kaxaystay. waxeer kadib waxay la kulmeen hadda nin kale oo reer miyi ah. waxa uu ku yidhi sayid caliyow aan kaa iibsado hashan oo iga siiso 170 dirham. sayid calina waa uu ka iibiyey. intaas kadib sayid cali wuxuu raadis ugu dhaqaaqay ninka reer miyiga ahaa ee deenta ku siiyey hasha si uu ugu celiyo 100kiisii dirham. isagoo raadinaya ayaa waxaa ka hor yimid rasuulka sallallahu aleyhi wasallam. waxa uu ku yidhi sayid caliyow ninkii reer miyiga ahaa miyaad raadinaysaa ee hashan ku deemiyey? sayid cali haa ayaa uu ugu jawaab celiyey. rasuulka sallallahu aleyhi wasallam waxa uu ugu jawaabay kaasi waxa uu ahaa jibriil midka hashan ku deemiyey. kan kaa iibsadayna waxa uu ahaa mikaa'iil. hashanna waxay ahayd geeli jannada, lacagtuna xagga rabbi ayay kaaga timid. ee sayid caliyow bixi wuxuu alle ku siiyey, hana ka baqin faqri. haddii qisadaad dhammaysatay oo aad ka heshay laag saar siina shargaree. ballanteennun waxaa weeye inaan ku salina rasuulkeena suban sallallahu aleyhi wasallam. ku qor kommentiga sallallahu aleyhi wasallam waxaad ka helaysaa ajri dambi dhaaf. waxaa idiin sutubeen anigoo siraajuddiin sheekh maxamed xasan oo ku maadsantan daawashadaada. بشارو 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 مدرسة النور العلمي لتحفيظ القرآن الكريم وعلوم الشريعة waxay ogeysiinayaan in hab online ah ay ardayda joogta dalka dibadiisa iyo dalka gudihiisa ay ku barayaan quraanka kariimka ah, culumta sharciga islaamka, fiqiga, siirada, axaadiista, adkaartii nabigeena suban sallallahu alayhi wasallam iyo culum kale oo fara badan. wixii faahfaahin kala xiriir nambarka hoos ku qoran. mahadsanid.